حلو عبد الفتاح وصح و22 بشا سبتمبر ayay ahayd xilliga diyaarad uu madaxweynaheeni hore madaxweyne Sheekh Shariif Axmed uu saaran yahay uu qabtay diyaaradda waxa qabtay sharci ay soo saartay hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed sida la socotiin diyaaradaha nootamka la soo saaro wuxuu qabtaa diyaaradda dhulka taagan xilliga diyaaradda nootamka uu soo baxay diyaarad dhulka taagneed ma jirin sida nagu maqaalo ah madaxweynaheeni hore ma uusan joogin wasaarad ahaan dawlad ahaan xukuumad ahaan wax dhibaato ah oo ku qabna madaxweynaheeni hore inuu si xur ah u safro meeshuu rabana tago annagay sharaf noogu jirtaa inaan soo dhaweyno markuu yimaado airportka meeshuu u socdana aan u sahalno marka runtii ma jirin wax madaxweynaheeni hore innaga shakhsiyan aan u geysanay ma jirin sharci diyaaradeed oo aan soo saarnay wuu jiray sharcigaas ayaa laga yaabaa diyaaraddii uu rabay inuu raaco inay qabato sida aad la socotiin arrintani hadda waxay hortaallaa maxkamadda maalintii ugu horreysay waa laga fariistay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa maxkamadda ayaa go'aan ka soo saari doonto iyo recommendations arrinta hanti dhowrka sano kasta wuu baaraa wasaaradaha oo dhan wasaarada kastana wasaaraddii la soo eedeeyo baaritaan ayaa lagu sameeyaa innaga intii nala soo eedeeyey baaritaanna laguma sameyn lacag nagu maqan ma jirto wasaaradda ku maqan haba yaraatee ma jirto recommendations la bixiyey way jirtaa oo la yiri habraaca maaliyadda raaca sidaa wax u sameeya laakiin ma jirto lacag wasaaradda ku baxday lacag wasaaradda ku luntay hanti dhowrku marka uu baaritaanka sameeyo markii uu wax arko baaritaan rasmi ayay sameeyaan taasina ma dhicin marka lacag nagu maqan runtii ma jirto dhinaca parking wuxuu ka mid yahay shirkadda Favori waxyaabaha aan kontraada kula galnay inay parkingkaasi maamusho waxay ka mid tahay dukaamada ku yaala airportka gudihiisa oo kale warqad uu soo saaray wasiirkeeni hore wasiir cilmooge 31 July 31 August 2013 nambarkeedana yahay 294 wuxuu sheegayaa dhammaan qofkii koobi rabana oo siinaya in wax alla wixii fee ah oo airportka laga qabto parking uu ku jiro navigation fee-ga uu ku jiro iyo dhammaantood in ay qaadi karto oo keliya shirkadda Favori marka ay qabato lacagta parking-ka ka timaado waxay ka mid tahay dakhliga airportka naga soo galo shirkadda Favori ayaa qabanaysa lacagtaasi dhammaantood iyada ayaa dawladda u soo gudbinayso ayadoo waafaqsan sida heshiiskii aan ku heshiinay dakhliga sida loo qaybsanayo ayaa dawladda qaybta ay lahayd halkaasi nooga imaanaysa dawladda raadana xilwaan fiqi waa runtiis saa la socotiin Jubbaland waxaa ka dhacday waxay gaftay inay doorasho qabato aniga shakhsiyan Ismaaciil igama joojin aniga ka joojiyay aniga ka joogay anigoo diidan in meeshaas colaad iyo dagaal uu ka dhaco sidaa sheegtay in reer Jubbaland baa Soomaalina waana qof iga joojin karna ma leh go'aanka aan qaatay inaan ka haro qof aan ka argoosanayna ma jiro dadka meesha joogo dhan waa qaraabo waa Soomaali waa saaxiib dib shacab Soomaaliyeed loo geysteen marqaatina kama ihi anigana igama imaan rugta ganacsiga aad sheegayso stadium soo saartay weligay ma arag qiyaas iyo arrimo siyaasadeed iyo islaam baa duurka ku dhashay iyo diyaarad baa kici waysay way sheegaan media kama ma hadsantay